بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي walaalaya qalbigaygii waxay noo dooreen walaaladiina halkan aynu iskugu keenkeenay ilaahay khayr badana siiye makaarimul akhlaaqda wanaagsan. xabiibaatii qofku inuu akhlaaq wanaagsanaado maaha yacni dadka dhexdooda inay dadkuna jeclaadaan maaha xabiibaatii, waa inuu ilaahay subxaanahu watacaala uuna jeclaado weeyaan. inaan dhaqankeenna hagaajino oon ishagaajino oon akhlaaqdeenna hagaajino oon isqurxino ruuxdeenna aan qurxino siday u dhaqmayso maaha inay dadkuna jeclaadaan, waa inuu ilaahay nagu jeclaado subxaanahu watacaala. waxaanan kuu sheegayaa inantayda wanaagsanay walaashayda wanaagsanay weligaa ha iska eegin kamaradaha bani aadamka, inay dadku ku eegaan, inay dadku ku qiimeeyaan, inay dadku ku caayaan, inay dadku ku ammaanaan. waxaasoo dhan waa isku mid xabiibati. inay ku caayaanna adiga khayr bayba kuu tahay. waa sax inuu bani aadamku diidaya. rasuulkii ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ilaahay ku leeyahay walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun. rasuulkaa ugu caafimaad qabay qalbi ahaan dadka, haddana waxaa lagu dhaahday waanu garanaynaa inuu qalbigaagu diidayo waxay ku leeyihiin. xabiibati, haddaa lagu caayo waxay kuu tahay khayr. anigu imika soo meehii qof caano dadkao dhan garanayaan, maalin kasta waxaa lay soo diraa dadii caayaya, markaas haddana idhaahdaa ilaahayo waan saamaxay. waayo anigu waxaan doonaya inuu ilaahay saamaxo subxaanahu watacaala. maaha inay ku beddelaan dadka aqwaashoodu, waxaa kugu filan inuu ilaahay ku arkayo subxaanahu watacaala. oo haddii la idhaahdo heblaayo waa heblaayo xun, uu ilaahay leeyahay ma xume ee waa addoon wanaagsan. marka maxaynu doonaynaa inaynu isku wanaajino nafteenna ilaahay dartiis subxaanahu watacaala, dadka dartood maha xabiibati. waxaynu ka hadlaynaa makaarimul akhlaaq xabiibati. khuluqa wanaagsanii keliya maha sifaat ee waxa weeyaan xasanaad aad kordhisanayso xabiibata albiya ruux. nabiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay inamaa bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq. waxaa la ii soo saaray inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan xabiibaati. waa shaqadii nebiga sala allahu calayhi wasalam, inuu dadka wanaajiyo oo uu hagaajiyo. walaalayaal, akhlaaqda wanaagsani waa darajaatun cinda allah. ilaahay agtiisa kor bay kuu qaadaysaa, oo ilaahay jacaylkiisaad ku helaysaa, oo waad ugu dhowaanaysaa. markaan ilaahay jacaylkiisa helno ayaynu helaynaa jacaylka bani aadamkana xabiibaati. waa xishood akhlaaqda wanaagsani, waa dulqaadasho akhlaaqda wanaagsani, waa tawaaduc inaad ilaahay dartii hoos iskugu dhigto, waa karam inaad maxay hatee wax bixiso kariimnimo, waa wafaa inaad oofiso ballamaha ay dadku kula gelayaan iyo kuwad ilaahay la gashay subxaanahu watacaala. waa ixsaanka inaad samayso xabiibaati, waa inaad dadka cafido akhlaaqda wanaagsani. akhlaaqda wanaagsan sifooyinkeegu waa sidaas. ilaahay subxaanahu watacaala nebiga ilaahay buu ku ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim. waxaad leedahay akhlaaq wanaagsan baa lagu dhahay oo fiican oo sarraysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam. caaisha la weydiiyey rasuulka sidee bay ahayd yacni akhlaaqdiisu waxay tahday khuluquhu kaana qur'aana. akhlaaqdiisu waxay ahayd bay tahday qur'aan xabiibaati. way qur'aanku wuxuu kaaga sheekaynaya in laga tago wixii xumaa, in la sameeyo wixii wanaagsanaa. soo maaha xabiibaati? khuluqii nebigu sidaasuu ahaa, wuxuu shabahayay qur'aanka. innakuna markaa waa inaan ku dayanno. walaalayaal, subxaana allah, maxay ahmiyad leedahay inay akhlaaqdeennu ay wanaagsanaato? waxay ahmiyad u leedahay, waa sabab ilaahay subxaanahu watacaala uu raalli kaaga noqonay. qof kastaa wuxuu doonaya inuu ilaahay raalli ka noqdo subxaanahu watacaala. ma qof baana doonaynin inuu ilaahay raalli ka noqdo xabiibaati? maya, qof kastaa wuxuu raadinayaa rida allah, inuu ilaahay raalli naga noqdo xabiibaati. raalli markuu ilaahay naga noqdona maxaanu helaynaa? janno. jannada markaynu galnana maxaynu helaynaa? inaynu ilaahay aragno subxaanahu watacaala xabiibaati.
qof kasta uu doonaya inuu ilaahay la kulmo soo maaha wejigiisa sharafta loo arka soo maaha waa inuu akhlaaqdiisa wanaajiyo xabiibaati ahmiyadday leedahay akhlaaqda wanaagsani rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam kiina iigu kiindhow yowma alqiyaama fadhi ahaan yacni iigu xiga ila fadhiisanaya meel wa axaasinakum akhlaaqa buu yihi siduu rawaahu tirmidi kiina akhlaaqda wanaagsan ayaa majlis ahaan aakhira ii dhow buu yidhahdee rasuulku sala allahu calayhi wasalam akhlaaqda wanaagsan walaalayaal miisaankaaga xasanaadkay kordhinaysaa ilaahay radihiisaad ku helaysaa jacaylka ilaahay baad ku helaysaa wanaag adduunyaad ku helaysaa wanaag aakhiraad ku helaysaa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala akhlaaqda wanaagsan addoonka kor buu ugu qaadaa ilaahay waayo muxuu wanaajiyey khuluqiisii ku saabsanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaqankuu ilaahay kula dhaqmayey buu wanaajiyey addoonku wuxuu wanaajiyey dhaqankii naftiisa uu kula dhaqmayey wuxuu wanaajiyey dhaqankii uu basharka kula dhaqmayey markaa kor buu u qaadmayaa ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala markuu wanaagsanaada halkuu gaadhaya taqwada alla kacabsiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna wuxuu leeyahay ina akramakum cinda allaahi atqaakum xabiibaati marka waa in akhlaaqdeena wanaajinaa si ilaahay agtiisa darajaad aynu u dallacno wuxuu leeyahy nebigu sala allahu calayhi wasalam ina alcabda liyudrika bixusni khuluqihi darajata asaa'im alqaa'im rawaahu abu daa'uud qofka yacni addoonka wuxuu la mid yahay akhlaaqda wanaagsan waxay gaadhsiinaysaa darajo ah qof sooman oo toosan qof maalin kasta sooman oo toosan cibaadaadkiisu toosan yihiin qur'aankiisu toosan yihiin ayuu la mid yahay qofka akhlaaqda wanaagsan leh akhlaaqda wanaagsan marka laga warramay akhlaaqdii wanaagsaneeda rasuulka sala allahu calayhi wasalam xabiibaatii waxaa kow ka ah raxmadda rasuulku wuxuu ahaa raxiib qof aad iyo aad u naxariis badan oo xataa cadowgiisa u naxariis badan rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu imaaday yowmu daa'if rasuulka waa la dhibaateeyey xabiibaati khadiijaa dhimatay abaa daalib baa ka dhintay rasuulka waayo waxay u ahaayeen garab ay kaga baqdaan quraysh markaasuu is idhahday iskaga bax manka oo bal daa'if buu tegey caaisha markay waraysanaysay maxay ku tahday yaa rasuul allah maalintee baa kuugu adkayd ma maalintii beder magsuu idhahday maya maalintii daa'if ba igu adkayd buu idhahday rasuulku sala allahu calay wasalam magaaluu imaaday wuxuu isaday dadka ilaahay u sheeg subxaanahu wa tacaala markaasaa rasuulkii la shiiday dumarkii iyo carruurtii baa lagu fasaxay sidii loo shiidayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa lugta halkuu dhiga dhiig baa buuxsamayey dhiigga ka soo dhacay madaxiisa lugihiisuu gaadhay markuu ka soo baxay isdaaliyeen ay rafaadiyeen uu meel fadhiistay waxaa u yimid malakul jibriil uu la socdo malagii buuro markaasuu ku idhahday labadan buurood ay u dhexeeyaan ma isku dharbaxna gebigow maya buu idhahday rasuulku sala allahu calayh wasalam waa waxay ku tusinaysaa raxmaddiisii rasuulka sala allahu calayh wasalam maalintuu maka waa laga eriyday rasuulka soo maaha waa la caydhiyey isagoo dhuumanayuu baxay soo maaha xabiibaatii bal u fiirso maalintuu soo gelayay isagoo awood luu yimid rasuulku sala allahu calayhi wasalam fatxu maka intaasoo kun oo ciidan buu watay rasuulku magsuu ku uri maxaad iga filanaysaan maanta sileedan waxaan kaa filanaynaa sidii nebiyullaahi yuusuf walaaladii u saamaxay oo kale iska taga buu ku yidhi sidaasoo kalean idiin saamaxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam yacnii khuluqiisa waxaa ka mid ahaa raxmad naftaada u naxariiso number one ugu naxariiso inay ilaahay ka badbaado subxaanahu wa tacaala naarta ilaahay ay ka badbaado ugu naxariiso naftaada u naxariiso ciyaalkaaga u naxariiso ehelkaaga u naxariiso basharkao dhan u naxariiso xayawaanaadka ilaahay rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam qofka aan naxariisan ilaahay uma naxariisanayo u naxariiso shaqaalaha kuu shaqaynaya kullamaa aad u naxariisato qofka ku hoos jooga kullamaa ilaahay uu kuu sakhiraya kuwa kaa sarreeya xabiibaati ma garanaya anuu xaggaas sida looga dhaqmo laakiin xaggaas soomaalida dhulkay soomaalidu degaan oo dhan dumarka waxaan ku dhahdaa hablaha inoo shaqaynaya loo naxariisto dumarkii o dhan waxay ka cabanayaan ninkiibuu ilaahay nagu saleeday innaka hablihii bayn dhibaataynaynaa guriga inooga shaqaynaya xabiibaati ilaahay ninkuu inagu salidaya waalidkuu inagu salidaya wax kastuu ilaahay inagu salidaya
حبيباتي أنا نحرسنا ضدك إلهي بينو نحرسنا إن شاء الله تعالى. أخلاق دي رسولك وحكمي هذه نكن لي نقدون الصدق. رسولك روم بشيء جري ولي بين مشيء حتى قبل الإسلام رسولك بين مشيء حبيباتي. runtu waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan. cafwigiiba ka mid a inaad dadka saamaxdo. ma og tahay cafwigu xabiibaatii ilaahay agtiisa waa darajaad buu ilaahay kuugu dallacayaa. yacni adduunyadan waxay ku tahay caafimaad. haddaad qof caloosha wax ugu haysid ma caafimaadaysid, ma seexan karaysid. markaad xasuusatidba waxaad dareemaysaa xumaan. laakiin markaad cafidid tiraahdo ilaahayow wan cafiyey qofka waad caafimaadaysaa. laabtaada caafimaad bay u tahay, ilaahay agtiisana darajaad bay u tahay xabiibati. subxaan allah, qofku isagoo aar goosan karaya weliba markuu cafiyo ilaahay wuxuu ugu dallacaa darajaad iyo haybad. dad baa moodaya imka haddaad dadka iska dhaafto dadku waxay koran waa nacas. maaha. xataa hadday ku dhahdaan ilaahay baa ku arkay inaad qof qiimo lowta dadka cafinaya xabiibati. subxaan allah, sidee baynu u wanaajinaynaa akhlaaqdeenna? waxaynu u wanaajinaynaa xabiibaati inaynu ku dayano rasuulka sala allahu calayhi wasalam. dadkii wan wanaagsana, hooyooyinkeennii wan wanaagsan, ummuna khadiija, ummuna caaisha, ummahaati lmu'miniinka o dhan, dumarkii naga horreeyey oo dhan ee wan wanaagsana, waalidkeennii wanaagsana. yacni waalidiinteennii hore dhaqan wanaagsan bay lahayn. soomaalidu dhaqan wanaagsan oo aad u fiican bay lahayd. inaan ku dayano waa qof kastoo inoo ah wanaag. inay nafteenna jihaad la galno, wanaajino nafteena, hagaajino. inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka barino inuu ina siiyo akhlaaq wanaagsan. waa ilaahay haddaanu ina siinin waxba inooma hagaagayaan xabiibaati. marka inaan ilaahay ducada ka barino akhlaaqda wanaagsan. rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allaahumma hdinii liaxsani alakhlaaq laa yahdii liaxsaniha ilaa anta. ilaahayow akhlaaqdayda igu haday akhlaaqda wanaagsan, waayo ma wanaajin karayo ilaa adiga mooyaane. waxaa wariyey muslim. inaad waxyaabaha kale akhlaaqdeena ku wanaajinayn waxaa ka mid ah saaxiibka wanaagsan. la saaxiib gabadh ilaahay ku xasuusinaysa, ilaahay ka cabso ku odhanaysa, waxaa ka cabso ku odhanaysa. anu waxaan saaxiib lahay ina sahra la idhaahdo. runtii xagga waan ka salaamaya. waxay igu taha mar kasta ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum. markay aragtaan oo khalad ku jira igu tahda dadkaad wanaagga faraysa aduna waad is ilowday, ilaahay ka cabso. wallahi saasay igu tahdaa ilaahay ka cabso. subxaan allah, waa inaan helno saaxiibka odhanaya ilaahay ka cabso. waad khaldantay walaashay, ilaahay ka cabso. ilaahay baad hortegi doontaa, maxaad ku hadli doontaa? ilaahay ka cabso. qofka odhanaya waa inaad haysataa, haddii kale waad khasaaraysaa xabiibati. walaalayaal, akhlaaqda wanaagsani maaha wax yacni keliya alfaad keliyata maaha, dhaqan aan samayno keliya maaha. ilaahay agtiisaa lagaa ogaanaya haddaad akhlaaq wanaagsan leedahay. miyaanaynu doonaynin xabiibaatii inuu ilaahayna sheego subxaanahu wa tacaala, uu yidhaahdo heblaayo ma arkaysa waa addoon wanaagsan. waa ilaahay addoonku jeclaado. malakul jibriil buu sheegayaa, yaa jibriil heblaayada soo ma arkaysid, waan jeclaaday anigu, ila jeclow buu ku odhanaya. markaasaa heblaayadiiba malakul jibriilna uu kacayaayo ahlu samaa'i oo dhan buu sheegayaa, uu ka odhanayaa heblaayadaas ilaahay baa jeclaaday ee jeclaada. haddana dhulkaa loo soo dejinaya oo dadkao dhan baa iska jeclaan. waxaa lagu odhanaya walaa anuu inanta soo ma arkaysid, waan jecliyahay. xataa muu arkin qofku. waxaasoo dhan waxa ka sii daran intaasoo keliyata maaha jacaylka ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay noloshuu kuu hagaajinaya, khayrkuu kugu hagaya, qur'aankuu kuu furaya, cibaadaadkuu kuu furaya. wuxuu kuu samaynaya ilaalo adiga kuu khaaso, sharka kaa ilaalisa. xumaanta markaas taa ku dhacwa lagaa soo qabanaya. rasuulku sala allahu calayhi wasalam intaanu rasuul noqon ka hor wuxuu isiraaday soo dhegaysa maalin heese ay dhegaysan jireen ciyaalku kale adhiga eega. wuxuu ku dhahday maanta adhigaysi eega anaa soo dhegaysana waxay tumaan qurayshtu. waxaa la yidhahday markuu meel marayo kala barhtana ay isagaa ka sheekayn rasuulku wuxuu dhahday sal salam dharbaaxay igu dhacday. waxaanan arkaynin baa dharbaaxay buu dhahday. mise laygu uri buuri laguma ogola adiga inaad waxaan dhegaysato. markaasuu dhacay rasuulku. mar dambe cadceedda kuleylkaygiibuu ku toosay. markaasuu ku soo noqday. ilaahay baa ilaashanayay soo maaha. maalin kale markii kabcada la dhisayey, kabcada la dumiyey, wuxuu ahaa qof shabaab oo dhalinyara. kabacdi shabaabkii dadkuna dee berigaas waxay haysteen wax yaroo guntiina.
wax kale lama haysanin. inamadii dhisayay kabcada ayaa dhagaxaanta halkan bay ku gurayeen. markaasaa qof wal inamadii intay guntintii iska furan ee halkan iskaga dhigeen ayay maxay ahaatay saarteen dhagaxaantii ku gurayeen. markaasaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu xishood badnaa, wuu akhlaaq badnaa, wuxuu israaday dadka ha isku horqaawinin. siduu dhagaxii u gurayey ayaa halkan baa dhiigtay. markaasuu is idhahday adiguna go'a furo oo ku saara halkan. maalintaasna wuxuu idhahday dhalbaxay ku dhacday rasuulku sala allahu calay wasalam. markaasuu igu idhahday laguma ogola adiga inaad cawradaada qaawiso xabiibaadi. yacni waxay ku tusinaysaa akhlaaqda wanaagsani waxay kuu jihaynaysaa dhinaca wanaagsan. ilaahay baa ku ilaashanaya subxaanahu watacaala. hidaayadana yaa bixiyay, ilaahay unbaa bixiyay. qofna ma hadaysmi karaya. waalidkaagii baa wanaagsanaa, kuma hadaysmi karaysid. yacni cilmi baad leedahay, kuma hadaysmi karaysid. imisaa dakaatiro ka sita diinta haddana aan ku dhaqmaynin xabiibaati. hadaayadu ilaahay bay ka timaadaa subxaanahu watacaala. walaalayaal, ilaahay subxaanahu watacaala waa wanaagsanaha dhabta ah. isagaynu ka imanay, isagaynu u noqonaynaa. marka calaaqad nuuceeyaa ku waajiba inaad ilaahay la sawrto adigu xabiibata albi ya ruuxi. ma waxaad doonaysaa yani subxaana allah, waxaan ugu dhahday xaggana malag baa naga fadhiya waxbuu naga qorayaa, xaggana malag baa naga fadhiya waxbuu naga qorayaa, soo maaha? kitaabkaagan ilaahay baad la hortegaysaa dhito. ilaahay wuxuu qornaya hayaa doontaydii akhriso kitaabkaaga. ma waxaad akhrin doontaa xan baa ku jirta, waxan baa ku jira, waxan baa ku jira. waa fadeexad, soo maaha? ilaahay inaad ka hor fadeexadooda xabiibata albi ya ruuxi. waxaan doonaynaa inaanaynu ilaahay ka hor ceeboobin. gabadh baa jirta cajiiba oo iminka anigu nolosheedaan aad u akhriyayo. waa raabica alcadawiya. raabica alcadawiya waxay kuu tahay tusaale cibaadada iyo jacaylka ilaahay subxaanahu watacaala. waxay tidhaahday sidee bay tahay bay tidhahday, maxaad u malaynaysaa bay tidhahday, qalbi ilaahay jecel subxaanahu watacaala ilaahay muu cadaabi doonaa, wuu gubi doonaa? maya xabiibaadi. qowl baa jira mashhuuray leedahay, inkastoo culimmada qaarkood albaani uu diidu idhaahdo yacni qofku sharciyan inuu sidaa u dhiga maaha, laakiin waa qowl aad iyo aad u mashhuura oo ku tusinaya xadka ay ka gaadhay jacaylka ilaahay subxaanahu watacaala. waxay tidhaahday ilaahayow haddaan kuu caabudayo, damac iga haya jannadaada inaan janno galo. eeg waa sax qofku inuu ilaahay u caabudo inuu janno galo, waa sababtuu albaani u diiday hadalka. waxay tidhahday ilaahayow haddaan kuu caabudayo inaan jannadaada galo, ilaahow igaba xarin bay tidhahday. ilaahayow haddaan kuu caabudayo naartaadan ka baqanayna, ilaahow igu bitaado igee. laakiin bay tidhaahday ilaahayow haddaan kuu caabudanayo jacaylaan kuu qabo, ilaahayow wejigaaga iga qarinin xabiibaad. yacni waxay ahayd dadka ugu cibaadada badan, dumarka ugu cibaadada badan ee jacaylka ilaahay ka hadalkiisa iyo la noolaanshiyihiisa ruuxaaniyaadka ugu badan. af walbana waad ku helaysaa, sawaaxili baad ku helaysaa, english baad ku helaysaa, carabic baad ku helaysaa haddaad qisaskayga akhri. raabica alcadawiya xabiibaad. yacni waxaan doonaynaa ilaahay subxaanahu watacaala jidhkeenna meel buu ku leeyahay ilaahay xabiibaati. waxaana weeyaan waa qalbiga. ilaahay qalbiga isagaa iska leh oo jidhkaaga dhex dhigtay. waa meesha keliyatuu ilaahay kaa eegayo xabiibata albi ya ruuxi. ilaahay ma eegayo jidhkaaga, ilaahay ma eegayo kalarkaaga, ilaahay ma eegayo qabiilkaaga. ilaahay ma odhanayo inanta addoonta nasiibi mareerkaas ahayd, ilaahay ma odhanayo subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu eegayaa qalbigaaga iyo camalkaaga. qalbigaaga hadduu mar keliyaata ilaahay soo eego naar ma tegaysid. ka qalbigeenna waa inaan saafiyeynaa oo akhlaaqdeennu waxay ka imanaysaa waxaanaad leedahay iyo afcaashaad samaynaysaa qalbigay ka imanayaan. haddii waxaan qalbigaaga ku jirna aad istiraado samee oo dadka tus, way soo koobnaanaysaa xabiibaati. walaashay macaane yaa xabiibata albi, qalbigeenna aan hagaajisano. ilaahay dartii wax u samee, ilaahay dartii uga tag. waxaan ilaahay baa diiday iskaga tag, waxaan ilaahay baa doonaya samee xabiibata albi ya ruuxi. maalin kastoon muxaadaro galo waxaan ka hadlaa, hadal baan kusoo gabagabeeya. waxaan dhahdaa ma garanayn dadku waxay gu dhahdaan, qaar bay igu dhahday habla wada aan walaalnay, maxaad mar kasta uga hadasha? waxaan dhahdaa waxaan doonayaa dadku inay la noolaadaan.
في يوم من الأيام إلهي بad la kulmaysaa subxaanahu wa tacaala. ilaahay baan kugu dhaariyey ma waxaad ilaahay la kulmi doontaa adigoon ilaahay kala hadalla kulankan aad la kulmaysid. horta adigu ma isweydiisay intaad fadhiisatay ma tidhi ilaahayow xilliman taloo kula kulmi doonaa. ta kale shawqu ma u qabtaa ilaahay inaad aragtid adigu horta ma doonaysaa ilaahay inaad aragtid la kulankiisu ma kugu weyn yahay oo ma ku fakartaa ma ka warwaraysa mise kama warwaraynaba xabiibaati ma waxaad doonaysaa in la yidhahdo maanta gabadh baa dhimatay oo khalaas way dhimatay inan jaarka baa dhimatay oo reerkaas waxaasaad doonaysaa mise waxaad doonaysaa in la yidhaahdo dadka dhulkuna yidhahdaan waxay ahayd addoon wanaagsan samadana lagaa soo dhoweeyo joyska adaa iska leh. rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu dhimanayay waxa u imaadeen malakul jibriil iyo malakul mowdkii wada socda. wuxuu ku idhahday rasuulka iiga waran sidee bay ahayd samadii. wuxuu idhaahday yaa rasuul allah albaabadii samadoo dhan baa la furay malaa'igtii oo dhan baa safaf gashay ruuxdaadaa la soo dhoweynaya yaa rasuul allah. aduu ma isweydiisay ma lagu soo dhoweyn doonaa talow mise ma lagu soo dhoweynaya ma doonaysaa ta kale in lagu soo dhoweeyo mise ma doonaysidba adigu adaa joyska iska leh. walaashayda wanaagsani waa run rasuulku uu camal badnaa ma gaadhi karayno laakiin waa inaan ikhlaas la imanoo dadaalno xabiibaati ilaahay jeclaano subxaanahu wa tacaala ka fakarno la kulanka ilaahay kala sii hadal ilaahay tanad la kulmin ma adigoon ilaahay la kulankiisa aan kala hadlin baa doonaysaa inaad tegtid adigu ilaahay u tegtid ceeb bay nagu tahay xabiibaati. khadiija bintu khuwaylad radia allaahu canha wa ardaaha markay dhimatay wafdi buu ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala. markaasuu idhaahday yaa rasuul allah khadiijaha ku kanfin kafanta dhulka taalla ilaahay baa u soo hadiyadeeyey kafan agtiisa ka timi xariir iyo dahab ka samaysan. markay noolayd ilaahay uu soo salaamay gurina uu ugu bushaareeyey markay dhimatayna jidhkeygii buu ilaahay sharfay. aduu ma isweydiinaysa talow ilaahay inkuu soo hadiyadeyn doonaa kafan ka timaaday ilaahay agtiisa. rasuulkiiba ayaaba wuxuu dhahday walimaadaa bay khadiiji waxa ku gaadhay. markaasuu malakulku jibriil ku dhahday ilaahay wuxuu dhahday hantideediio dhan bay ilaahay dartii ula baxday. marka ilaahay baad u tegaysaa kolle iyo kolle ilaahay baan u tegaynaa waa inaan wanaag horumarsanaa akhlaaq wanaagsan dadka si wanaagsan ula dhaqanno hadal wanaagsan oo dabacsan kelmadda wanaagsan waa sadaqad wejigoo furani waa sadaqad. xabiibaati salaantu way wanaagsan tahay rasuulku muxuu yidhi sal slam salaanta fidiya dadkana cuntada siiya habeenkiina tukada iyadoo dadku hurdaan jannadaad geli doontaan idinkoo salaama nabad qaba jannada iska galaa laydinku odhan doona. qofka kaa soo horbaxay kastaba in ku taha asalaamu calaykum hadal dabacsan. maalin dhawad waxaan tegay meel sbaa bay igu casuuntayeenani nairobi ha laba dumaroo kenyana joogo maxay hatoy kristan ah. markaasaan ku dhahday ma kristan baa tihiin tiraadan haa misan laabta geli alla walaalana anakuna muslimiin baan nahay. way istaan waxay dhahday weligeen iyo allahin qof muslimo nagu dhahdo walaalan nahay mana arkin. soo ku dhahday waayo ahlulbeyt baynu nahay maxaad aaminsantihiin nabiyullaahi ciise anaguna nabiyullaahi maxamed haya. waxaan ku dhahday maryam maxaad ka aaminsantihiin sirada maryam waxaan ka aaminsanay inay ciise dhashay bilaa aabbo maxay tihi laakiin markii dambena yuusuf guursatay oo carruur kala dhashay. markaan waxaan uga sheekayey maryam iyo siduu islaamku maxay tihi kii wuxuu ka yidhaahday saas ii daawanayeen way ooyeen iyagoona is ogeyn. gabadhii u lahayd meesha intii u tegeen bay ku dhahdeen weligeen maanu arkin sidanoo kale qof nice human u ah. yacni anugu waan fiican yahay maaha anugu waan fiican yahayna malihi laakiin waxaan uga jeednaa khuluqa islaamku ina yacni markaad islaam sheegaysid waa inaad adigu tusaale u tahay xabiibaati. yacni maalintaas aniguna waxaan rabay inaan wanaag u muujiyeyka sidaasna waxaan ku dhahday kitaabkiina bibleka waxa ku yaala nebi ciise inuu nebi ka dambayn doono ay raacaan mase yidhahdeen haa waxaan ku dhahday waayo maxamed u raaci weydeen marka qofka in lagala hadlo waxaanaad kala hadsan cilmi ad yortaa laakiin haddaad tidhaahdo naar baa jirto naartaad tegaysa waraad iska sucuq horeyna kuwa kitaab baan haysanaaye xabiibaati. inaan u naxariisano dadka kiristankeena la nool haddaad qof kiristana muslimiso waa wax aad u weyn ilaahay agtiisa idinkuna jaaniskasaad haysataan. laakiin haddaanu adiga ikhlaas kugu jirin qalbigaagu wanaagsanayn maxay tahay khuluqaagu wax bedelaynin sidee buu xabiibaat yacni dadkaan u bedeli karayna. laakiin markay akhlaaqdaadu wanaagsan tahay camalkii islaamku ilaahay yidhi sidaa u dhaqmaad u dhaqmaysid gaaladii baad athar ku yeelanaysaa qalbigoogii raad baad ku samaynaysaa hadalkaagii buu ilaahay qurux raacinayaa
si ay dadku kuu dhageystaan oo camalkaaga ay ugu fiirsadaan. walaalayaal dhayt baynu la leenahay ilaahay subxaanahu watacaala. waa inaynu u dadaalno maalintaasi ilaahay la kulmayno. kolley innaka samada laynaga soo dhoweyn maayo, waxaynu nahay ducafaa waa masaakiin oo waxba maynu shaqaysane, laakiin ilaahay inuu daciifnimada intuu inoogu naxariisto balle kulankiisu yacni inoo wanaagsanaad. anu wallahi waan isweydiiye waxaan dhahdaa ilaahay shawqan u qaba inaan arko, talow ilaahay nasiibkayga ma igu oran doonaa markaan arko sidaad adigu ii sugaysa inaad ii aragto ayaan aniguna kuu sugaya. yani subxaan allah, takhayalii waan isweydiiye ole talow may dhac kartaa masirada uma malaynay, laakiin waayo anu waxaan ahay qof iska masaakiina. subxaan allah, ilahay waxaan ka baryaynaa inuu camaasha inoo hagaajiyo oo inoo wanaajiyo. muxaadaro kalan meel kale ku lahaa, aad baan u jecelahay hablaha soomaaliyeed oo dhan. waxaan ka xumahay maalin dhaweed waxaan tegay muqdisho, dad badan baa igu dhaliicaynaya, may fahmin anu waxaan u socdaa kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala. dhalasho hadday noqoto gabadh reer somalilandna bana meel kastoon tagana waan ka sheegaa xabiibaati, laakiin ilaahay dartii baan u socdaa. inan kastoo soomaali inay walaale ku yihiin kitaabka ilaahay maynu isdiidnay, qur-aanka ilaahay inaynu walaale kuna maynu isdiidnay. marka soomaalinimada barta halkaa iska dhiga, dad muslimiin oo kitaabka ilaahay ku walaaloobay miyaynu diidnay? dumarkao dhan waxaan rabnaa inaan kitaabka ilaahay ku walaalayno, wax isla qabsanno, diinta ilaahay ka shaqayno, gabadho ay barato xaquu ilaahay ku leeyahay, xaqay nafteedu ku leedahay, xaqay dadku ku leeyihiin, si ay ilaahay uga badbo. waayo markaan haddayn jannada ilaahayna geeyo aan isku aragno, ma shaqaynayso yaad ahayd, xagad ka soo jeeday, reer maad ahayd, laakiin ikhwaan baynunay jannada iskugu yimaadeen. waa laga yaabaa inaan isku shafaaco qaadna yowma alaakhir. haddaad jannada inta tagtaan iga weydaan aniga, waxaad odhanaysaan gabadha siiba la ohan jiray ilaahayow meeday, oona ohan jirtay ilaahay ka cabsada, jannadiiba kuma arkeenno. markase haddaad tidhahdeen ilaahu khayrkii noo sheegi jirtay, ilaahu naxariiso, waa laga yaaba inaan shafaacadiina ku hela anigu. xabiibanti, yani dadka walaaluhu way isku shafaaco qaadaan ilaahay dartii, laakiin lama oran ilmaadeerku way isku shafaaco qaadayaan, walaalaha wada dhashay way isku shafaaco qaadaan, ilaahay muu oran. laakiin kuwa ilaahay dartii isku jeclaaday way isku shafaaco qaadayaan. inaan ilaahay dartii u walaalowno wax ka wanaagsan ma jirto xabiibaati. inaan soomaaliyado kastan anigu jecelahay, mid aan garanayno mid aanan garanaynin. markaan ducaysanayo waxaan dhahdaa ilaahow inan kastoo soomaaliyeed mushkiladda haysatay ilaahayow ka kor qaad, halkay ka jabantay ilaahayow ka kab, waxay ku weydiisanaysa ilaahayow sii, farxad iyo khayr ilaahayow u fur. kama tago hooyada soomaaliyeed baan u duceeya, inanta soomaaliyeed baan u duceeya, sawjada soomaaliyeed baan u duceeya, ilaahay baa sidaa igu og, gooni baan u istaagaa. xabiibaati, waa jacaylan u qabo hablaha soomaaliyeed, waa isku kaymid, ama hayla dhalato ama magaalo haylala joogta ama meel kale hayla joogta. ii soo duceeya, aniguna waa inii soo ducaynaya. ilaahay dembigeenna ha dhaaf, dembiga waalidkeena alla ha dhaaf. ilaahay jannaati alfirdows alaclaa maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin ilaahay inagu kulmiyo. ilaahay waynu jecelnahay, ilaahay hayna jeclaad. jacaylkaynu ilaahay u qabna ilaahay isaguna inagu jeclaad. inta samada laga yaqaano ilaahay magacyadooda ku qoray ilaahay inaga dhigo xabiibad. wallaahi waxba ma sheegayso dadkoo dhan hadday ku garanayaan oona samadaba lagaa garanayn, waxa la yaala waxaad qiimo leedahay ma jirto. laakiin ilaahay hadduu ku soo hadal qaadayo unbaad qiimo leedahay. ka ilaahay dhankiisu inoo hagaagsanaado, inoo wanaagsanaado. fi dunyaa ilaahay nicmad ina siiyo, cibaado wanaagsan ilaahay ina siiyo, wa fil aakhirati jannaati alfirdows alaclaa ilaahay ina siiyo. dadka intay naga xanuunsanaysa allah inoo shaafiyo, muraadadeedan macsi lahayn allah ina siiyo. qof kasta halkuu ka jaban yahay ilaahay baa og. ilaahay ha kabo, ilaahay ha kabo. waxaan idinkula dardaarmayaa naftayda iyo idinkaba, bani aadam uma baahnid, wallaahi bani aadam uma baahnid. laakiin ilaahay intaad barato ayaa subxaan allah ayaa maxay tahay kugu filan. waxaa jira inankii ku lahaa barnaamijka xadan inanba waxaa la yidhahdaa cabdiljaliil show, wuxuu ka duubay sheekh cabdilbaasid la yidhaahdo, garashada ilaahay subxaanahu watacaala. ayaamkan oo dhan social media u haystay kilibkaasi. haddaad kilibkaa si fiican u daawataan waxaad baranaysaa ilaahaaga dhabta. wallaahi waan kula talinaya daawada. ilaahay baad si saxa u baranaysaa, kalsoonidii yaqiintaad ku qabtay ilaahay baa kuu dhismaysa. yacni ilaahay inaad baratod fahamtid wax ka qiimo badan ma jiro. uma baahnid bani aadam inantayda wanaagsanay, uma baahnid bani aadam walaashayda wanaagsanay. laakiin waxaa lainooga taaglaya ilaahay la hadal subxaanahu watacaala. gacmaha kor taaga waxta yaa rabbi, yaa xabiibi, yaa allah, waxaasan anigu doonaya. laakiin waa xilima
وحلقن هجاجنا علاقة دي إلهي الله نهي سبحانه وتعالى إلهي بينو تجينا لا تشوجينا نلشني بدنايد أتنبه إنتيرين الدنيا ده تشوجنا سي الدنيا دنيا ينوجونك سناتو آخرا إنه مال سرو تغنو ولا ليال إلهي نسكو حرنو isku xidhis keliya maaha ilaahay qalbigaaga ka jeclow markaad kelidaa tahay ee doonaysa inaad ilaahay la hadasho sidee buu qalbigaaga ma ooyeysaa ma leeda ilaahay aan ku jecelahay bilkhushuuci watadaruci adiga ooyaya ada hoos isku dhigaya oo qalbigaagu soo jeedo qof noolo addoonnimo muujinaya ilaahay jacaylka markaad u sheeganaysa ma ooyeysaa haddaanad ooyeynood ilaahay dartii u ooyeynin waxbaa kaa khaldan isku noqo xabiibata albir waa inaan isku noqono qalbigeenna waxbaa ka khaldan xumaan baa ku jirta haddaanad ilaahay dartii u ooyeynin ama khawf ilaahay aad ka baqanayso aanad u ooyeyn ama ilaahay dartii weynidiisa intaad u fiirsatay aanad ooyeynin waxbaa kaa khaldan addoonba addoonku ka oohin badan yahay ayuu ka farxad badan yahay ilaahay agtiisana laga jacayl badan yahay goormaa kuugu dambaysay adiga inaad ilaahay dartii horta u oydo bal isweydii xilimaa kuugu dambaysay inaad ilaahay dartii adigoo kelidaa iska fadhi ilaahay dartii inaad u oydo subxaana allah goormaa inoogu dambaysay xabiibaati qalbigii baa ina qalalay haddii beri hore inoogu dambaysay haddii dhoweydna dee nimcaynu ku jirnaa marka ilaahay dartii aan u oyno intaan fadhiisanno inakoo keliyaat isbarno inaan ilaahay ka hoos oyno yaa xabiibi ya allah anaa daciifa maskiina atawassalu ilayka yaa rab alcaalamiin kuna kalsoonow ilaahay subxaanahu watacaala xabiibaati walaalayaal waad mahadsantihiin oo jasaakum allah khayra madrasadan alfitra ayaynu u ducaynaynaa maamulkeyga aaminay hablaa la shaqaynu ducaynaynaa ardaydaynu u ducaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inaynu noqonno dad qur'aanka ilaahay u khidmeeya ilaahay baa dadka shaqaalo u doorta xabiibaati ilaahay baa dadka shaqaalo u doorta anuu markii koowaad noloshayda markaan yaraa waxaan ahaa arday active oo hadalka ku wanaagsan markaan jaamacadda dhiganaya sidoo kale hadalka waan ku wanaagsanaano laakiin marna ismaan lahayn uga faa'iidaysa dacwadda laakiin markaan waxaan diyaariyey suwaru min xayaati saxaabiyaat anuu xataa diinta wax ka dhigtay ayuunbaan isiraaday suwaru min xayaati saxaabiyaat man diyaariyo on diyaariyo on akhriyo khadiijaan maalintii koowaad ka bilaabay noloshaydii buu isbeddeshay waxaan idhahdee waa maxay waxani anu waxaan doonaya inaan khadiijo kala noqdo haddana waxaan akhriyay caayisha waan sii yaabay waxaan dad baa xayaad noloshan noolaa aniguna ciyaar baan ku jiraa ma soconaysan idhaahde yacni waa noloshii saxaabiyaadka ay bedeshay waxaas arkaanoo dacwaddii ku jira dadkii kulaan saxaabiyaadkii kala noqonna xabiibaadii markaasaan bilaabay markaan khadiijo arkay waxaan ila bilaabay inaan ku ducaysto ilaahayow shaqaalahaaga ii door ilaahayow shaqaalahaaga iigu darso ilaahay baa dacwadday keenay markaan ima xataa maan islahayn markaan la ilaahu shaqaalaha iigu darso daaciyad noqo xataa maan islahayn wallaahi markaan dacwaddii imaadeen waxaan dhahday ilaahayow shaqaalanimo ii aqbal ilaahayow shaqaalanimo ii aqbal man ilaah marka xabiibaad yacni way ku beddelaysaa noloshii rasuulka noloshii guruub baan leeyahay kuley nasiibo sheekh aadan siiro la yidhaahdo oo telegaraama saxaabiyaadkan ka hadlaa waxaan ka hadlaa xabiibaadtii siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo weliba waan soo macaaneeya wanaan jeclay inay dadka bedasho runtii marka xabiibaadtii gruubkayga waa telegram ku soo biira si aanu yacni u wada joogno anoo hargeysa jooga inta badan gruubkan ka soo hadlayaa hooyooyinka gruub gooniya un lay zawjaadkii hooyooyinka casharan ku siiya maha lacag waa free hablahana dhallinyaradana casharo gooniyaan siiyaayo sayidaatu ahliljanna laydhaa gruubkooga marka habluhuna ay igu soo biiraan maxaa hatay zawjaadkii hooyooyinkuna ay igu soo biiraan waxaan doonaynaa nolosheenna adduuniya inay noo noqoto inaan ku sawrno nolol wanaagsan oo aakhiro ah xabiibaati waan idin jecelahay walaalayaal asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu